الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود الكسر هذا برنامج كيني فيد وناكسن وتكداوني سين جنال كقرج قود وحنا نلس عوسيني يعني وها قرد محمد علي برنامج قود بدأ أكو داون تونتانا وحاكم ده رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خير وكقب جليشر أي سوق من قابسي قرمة مدوبي وكدعي مجال مقدشو shirkii dib loogu heshiishiinayay maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa oo dib loo dhigay iyo maamulka koonfur galbeed oo soo qabtay xubno ka tirsan xarakada al-shabaab qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena fiid wanaagsan haatan ku soo dhawaada warkaas oo fidsan رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خير أيها كقب جلي شر أي هجامين سو قرمة مدوبي كدعي مقالة مقدشو وركاسي وحين صدر وريه هنا صديق محمد كلاس رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي خير أيها مقدشو وقيب جلي كلن لوجه اللي قرشها أرمها بني آدم نمذا الصومالية إلا بدأ يكون إزدي دبنكا أو إسوق من قابس قرمة مدوبي waxaa sidoo kale kulankan ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay midowga Afrika ururada caalamiga ah iyo hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo wanaagsanaaneeyso xagga xuquuqul insaanka marka loo eego sida meesha looga saaray dhacdooyinka bini'aadanimada ee ka dhici jiray deegaanada Soomaaliya sida kufsiga iyo jirdilka mas'uuliyiinta qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay 1.6 bilyan oo dollar si loogu caawiyo 5.4 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini'aadanimo Sadiq Mohamed Kilas barnaamijka fiid wanaagsan Nairobi shirkii lagu dhameystirayay heshiiskii maamulka galmudug iyo hay'adda sunna wal jamaa ayaa dib loo dhigay warbixin arrintaasi ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyahina Raxma Yuusuf Maxamuud wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in uu dib u dhacay shirkii dhameystirka heshiiska ahlu sunna iyo galmudug kaasi oo lagu balansanaa in maanta lagu soo gabagabeeyo xarunta galmudug ee Dhuusamareeb wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in shirku uu u baaqday wufuud ka qayb gali lahayd qaarkood oo ka maqan Dhuusamareeb kuwaas oo la sugayo inay maanta magaalada soo gaaraan dadka maqan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe qoraal uu u soo diray madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ku mashquulsan yahay shaqooyin deegaanka ah sidaas darteedna uusan ka soo qayb gali karin shirka Raxiim Yuusuf Maxamed rasmi ruuxi barnaamijka fiid wanaagsan degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa soo qabtay xubno ka tirsan xarakada al-shabaab markaasi waxa ay noo faahfaahinaya wariyaheena Miski Maxamed Caato magaalada Baydhabo ayaa laga soo sheegayaa in ciidamo ka tirsan koonfur galbeed iyo ciidanka xoogga dalka ay nolosha ku qabteen xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Manaas ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya ayaa howlgal ku qaaday deegaanka Manaas oo qiyaastii u jirta 45 kiiloomitir magaalada Baydhabo afayeenka maamulka koonfur galbeed ayaa idaacadaha maxalliga u sheegay in ay gacanta ku dhigeen ilaa 5 dagaalamo iyo mootooyin ay adeegsanayeen waxa uu sheegay in ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa xoogga dalka ay wadaan howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa shalay weeraray deegaanka Koofguduud iyo Daynuunay ayuu gacan ku haynteeda la wareegay muddo kooban dhaqdhaqaaqay ciidan ayaa laga soo sheegayaa inay ka socdaan deegaanada ku hareeraysan magaalada Baydhabo Miski Maxamed Caato barnaamijka fiid wanaagsan ciidamada Turkiga ayaa loo daadguriyay xuduudda ay Suuriya wadaagaan dalka Turkiga warbixintaasi waxa ay noo soo diray wariyaheena Maxamed Jaamac Abdullahi Armaajo madaxweynaha Turkiga ayaa ka digay inay suurtagal tahay weerar ay ku qaadaan laba goobood oo ku yaala waqooyiga Suuriya ay gacanta ku hayaan xoogagga Kurdiyiinta taangiyada iyo ciidamada Turkiga ayaa sidoo kale la soo dhoobay xadka u dhaxeeya Turkiga iyo Syria madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in mucaaradka Suuriya ay taageersan yihiin dadaalada Turkigu argagixisada kaga saarayo Manbij iyo Afriil goobahani ayaa waxaa gacanta ku haya kooxaha Kurdiyiinta ee GPY ay xukuumadda Ankara u aqoonsantahay koox argagixiso marsaa u sii horeysay ciidamada Turkiga ayaa duqeeyay deegaanka Afriil oo darisla gobolka ay mucaaradku haystaan Idbil dawladda Turkiga ayaa dhawaan si kulul ugu jawaabtay hindise Mareykanku ay doonayeen in waqooyi bari Syria ay uga dhistaan
xoogag mucaarado oo dhan 30,000. madaxweynaha turkiga ayaa muddo dheer ku hanjabayay inuu weerari doono magaalada Anfield ay gacanta ku hayaan xoogaga kurdiyiinta. dowladdiisa ayaa kooxda YPG u aqoonsatay inay yihiin xisbiga shaqaalaha ee kurdiyiinta ee PKK ee la sii ballaariyay. turkiga ayaa muddo 6 sano ah sheeda ka daawanayay xoogaga GPY iyo ciidamada xorta Suuriya oo gacanta ku haya dhul dhan 10,000 oo kiiloomitir oo isku weera. maxamed jaamac bulaale, barnaamijka Fiid Wanaagsan, Nairobi. hogaamiye ka tirsan mucaaradka Itoobiya ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday in la sii deynayo maxaabiista u xiran siyaasadda. markaasi waxaa inoo diyaariyay waryaheena Afakaado Maxamed Axmed. dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay hogaamiyihii mucaaradka dalkaasi Marere Godina oo u xirnaa muddo 2 sano ah. saraakiisha xabsiyada Itoobiya ayaa qoyska Marere u sheegtay in xabsiga laga sii daayay maanta, wuxuuna ku eedeysnaa in uu xiriir la lahaa kooxo argagixisa ah. maalintii Isniinta ayay dowladda Itoobiya shaacisay inay xabsiyada ka sii deynayso ilaa 500 oo maxaabiis oo la tuhunsanaa. bishan horaanteedii ayay sidoo kale dowladdu sheegtay inay la laabanayso dacwadaha loo haysto qaar ka mid ah dadka mucaaradka ah ee xabsiyada ku jira, oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin hore loo xukumay. muddo 2 sano ayaa waxaa Itoobiya ka socday mudaharaadyo ay sameynayeen shacabka oo ka cabanaya arrimo badan, iyaga oo codsanayay isbedelo. Itoobiya waligeed waa ay diidi jirtay in ay jiraan maxaabiis u xirxiran arrimo siyaasadeed. Afakaado Maxamed Axmed, barnaamijka Fiid Wanaagsan, Nairobi. tareenada dalka Japan ayaa guuxooda lagu xiray codadka eyga. warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaariyay waryaheena Faisal Bishaar Aligo. ilma baariyaal u dhashay dalka Japan ayaa tareenada dalkaasi ka shaqeeyay ku rakibay dhawaaqi eeyaha si looga hortago shililka tareenada iyo deerada ku nool dhulka miyiga ah ee tareenada sii maro. ujeedka ayaa waxa uu yahay in la cabsi geliyo deerada iyo noolaha kale ee ku nool dhulka miyiga ah kuwaas oo soo gala xadiidka tareenka, halkaasna uu ka dhasho shil. saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista tareenada dalka Japan ayaa sheegay in shanqartaas oo tareenka laga shido muddo 20 ilmiriqsi ah in ay ku filin tahay in ay kala eriso deerada aaga joogto. haddii tijaabadan lagu guuleystay waxaa la qorsheynayay in mustaqbalka la hirgelinayo qorshe sameecado looga horkibayo goobaha ay deerada ku badan tahay habeenkii ee xadiidka tareenka agtiisa ah si looga fogeeyo tareenada loogana hortaga wixii shil ah dhici lahaa. deeraha ayaa timaada qadka tareenada maadaama ay jecel yihiin maadada birta ah oo ay leefsadaan. qorshe horey saalada libaax looga daadiyay qadka tareenka si looga baajiyo deerada ayaa la iska dhaafay kadib markii roobabka joogtada eedda ah ay markiiba dhaqaan saalada. wasaaradda gaadiidka Japan waxa ay sheegtay in sanadkii 2016 oo kaliya tareenada jireen 613 oo deera ah iyo xayawaan kale, iyadoo shil kasta uu dhaco 30 daqiiqo oo dib u dhac ku keeno. Faisal Bishaar, Faisal Aligo, barnaamijka Fiid Wanaagsan, magaalada Nairobi. daawadeen qodobkaas ayaana ugu dambeeyay barnaamijkeena Fiid Wanaagsan. tan inta dib u kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan ku dhaafayaa sidaas fi amaanillah.